شدة عليه على حسان إيو أتباع لسية تكفير قدن سببتم حيث لبعض المواد بان هو وين أسباب الشدة كانتي ومركب هذا الإذاعة لسان المردود عليه مد كان لردنا يا آذو عرب قحن قف أفحن النبي صلى الله عليه وسلم وحا كسوان إنو يري إنغا مid maahan qofka aan weyneynin keena weyn aan u naxariisanin keena yar aan garanin xaqa uu leeyahay qofka caalimka ah culimada oo la weyneeya la ixtiraamo waxa weeyaan min tacdiimi sha'aa'ilillah culimada oo la dhibana waxa ka imaada musiibaad u tira badan waxana kamid ah qofka oo asagoo dunida joogo dhiman qalbigiisa uu madoowaada oo qalbigiisa u dhintay in qof caalim ah dadka shariicada bara'a tiraahdid waa qof afxuman iska raadiyay ayadoon ognahay in shariicadeena ay xarimtay afxumada waa musiibo aad u weyn weeyaan Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ya wuxuu yiri qofkii culimada yaraysta ee culimada dhayalsada ee culimada duraayi waxa tagta aakhiradiisa al-Imam Ahmad bin Adra'ina wuxuu yiri qofkii dura ee wax ka sheega culimada ahlu cilmiga qaasatan kooda waaweyn wuxuu ku dhacay u leeyahay kabiira min kabaa'ir adh-dhunub Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu waxa laga soo guuriyay inuu yiri qofkii faqiihdiba wuxuu dhibay rasuulka sallallahu alayhi wa sallam qofkii rasuulka dhibana wuxuu dhibay Allah subhanahu wa ta'ala hadaba in culimada lagu dhiirada cirdigooda iyo sharafkooda oo wax laga sheegay oo lagu tilmaamay inay yihiin dad afxun waa musiibo falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم